afar qiso baan idinla wadaagayaa. qisada ugu horraysa waxaa la yidhaahdaa yaa ku baray aabbahaa inuu waraabo ahaa. qiso cajiiba waaye. gabar reer baadiye ah oo xoolo dhaqata ayaa waxay baadiyaha ka heshay ilmo yar oo di'bi ah. di'biga waxaa lahay yeyda. waraabahana waa loo isticmaalaa mararka qaarkood, laakiin waa baashan wolofka la yidhaahdo ama yeyda la dhaha weeye, ama uubatada. meel bay ka soo qaaday, way u naxariisatay, arigeedii bay u keentay, caanay ka siisay. lax ka mid ah idaheedii, wala fiirsada qisadan, ama waxaan dhihi lahaa riig ka mida riyaheedii bay naaska ka nuujisay. markaase waxay uga dhigtay ilmo. ilmihii wuu koray, caanihii baa la nuujiyey, wuu cayilay, wuu qurxoonaaday, arigii buu ka mid noqday. maalintii dambe ayay gabadhii waxay aadday, reer baadiyaha ahayd, meel bay aadday. markii galabkii ay soo noqotay bay waxay u timid yeydii oo ila way weynaatay oo xoog bay yeelataye ridii ay nuugi jirtay cuntay oo hilibkeedii cuntay. waa yaab waay. gabadhii reer baadiyahay gabay bay tirisay. waxay tidhi, naas baan ku nuujinnay, waanan ku korinnay, waadna nagu dhex barbaartay, ilmaanan kaa dhigannay, ee yaa ku baray aabbahaa inuu yey ahaa ariga cuna? yaa ku baray? waxay masaladaas ka turjumaysaa dadka qaarkood haddii aad soo dhowaysato way ku baabi'inayaan. haddaad u nicmayso way ku xasdayaan. haddaad la saaxiibto way ku baabi'inayaan. waa dad khubathaa'u nafsi, naftoodu ay liidato oo ay xun tahay. yaa ku baray aabbahaa inuu waraabe xoolaha cuno ahaa? yaa canugan u sheegay in xoolaha la cuno? looma sheegin, mana uusan arag, laakiin waa dabeecad ku jirta. canugan inuu tuug yahay yaa baray. qoftan dumarkaa inay gogoldhaafka taqaana yaa baray. ninkani inuu gogoldhaafka yaqaano oo u yahay ciyaar suuqnimada yaa baray. yaa beenta baray, yaa laalaabka baray. waa dhaqan uu ka dhaxlay qoyskiisii iyo dadkii dhalay.